السلام عليكم أصحابتي سيتهين سيكو بردين سيكو ركشين وإذن سلام يا أصحاب السلام قاليها وإذن سومرنيا meel kasta dunida ku joogtaan waxaa idin leeyahay ii soo dhawaada janalkii kusoo dhawaada deeqa biyuuri deeqa juuro ahaa waa iska bedelay deeqa biyuuri hadda u bedelay marka insha Allah this name my last longer insha Allah because maalin kasta waxaa raadinayay magaca ugu fiican ma fahantay magacaan hadda koraa YouTube ku lahaan jiray YouTube-kayga horu ahaa 2016kii marka insha Allah haddana waa kusoo laabtay gabdho badan iyo wiilal badan oo igu yaqaano magacaan I hope they find this channel also inshallah asxaabta channelkan hor u sii wada waadi salaamay asxaabta maanta waxaan rabay inaan ka hadlo arinta gabadhan walaasheen xid xarago iyo waxaan rabay inaan ka hadlo nimcan helaa I know dad badan dhahayaday maxaa ka galay maxaa arinta u dhaxgalaysa laakiin waxaan rabay inaan ka hadlo dhinaca xaqdarada ah iyo maxaa lahaayay dulmiga maxaa dulmi horta ma fiicno maxaa ilaahayna nama dulmiyo anagoo dhan ilaah nagama dhigo dadkii wax dulmiyo dulmiga aad iyo aad buu u xuman yahay sheekada aniga waxaa ku dhex arkaa dulmi inuu ka jiro gabadha aniga wiilkan arintoodana dad badan ay ku falanqeynayaan dhanka xun dad badan ay ku falanqeynayaan dhanka fiican dad badan ay ku falanqeynayaan dhanka qabyaalada ma fahantay dadna maxaa lahaayay dad waxaa jiro waxba ogeyn oo maxaa lahaayay qabiil la soo qaadayo haday rabaan qabiil dartiisa naarta ku galay ma fahantay ilaahay dadkaas nagama dhigo aad iyo aad bay u xun tahay qof maxaa lahaayay qabiil dartiisa u bareeraa inuu maxaa lahaayay wax uusa ogeyn difaaco ama u bareerayo waxuusa maxaa lahaayay fahansaneyn uu maxaa lahaayay dhabarka u dhigto maxaa lahaayay aad bay u xun tahay weligaana ha noqon qof qabyaalad wax ku fiiriyo indhahaaga inuu indhaha justice ku fiiriyo Allah ka dhigo maxaa qabyaalada iyo waxyaalahan maxaa Soomaalida ku qurtay ilaaha naga najaxo insha Allah ummada Soomaaliyeedna meel kasta joogaan bari galbeed waqooyi meel kastaba ilaaha wanaajiyo aan leeyahay aniga soo arka arintan marka sheekadu inuu dheereeyay 2 daqiiqo iyo 25 seconds maxaa ka hadlayay xaq darada arinta ani soo arko anintan gabadhan walaashin gabadha waxaad lagu eedeynayaa inay tahay oo raja weeye gabadhan iyadoo 5 jir ah hooyadeed ka dhimatay rafaad ku soo kortay kiisas badan loo raadinayaa ma fahantay laakiin dadka ma arkayaan gabadhan proofska ay soo dhigayso video hada waxaan saaya proof ay soo dhigtay iyadoo nimcan ilaahay la socdo iyadoo uur la eedeyso Amir Abis what kind of proof aad raadinaysaan gabadhan wiilkan dadka dhan u dhow xataa waxay dhayn wiilkan gabadhan 5 sano la sheekeysanaya asagoo xaas qabo Mareykan joogo ayuu gabadhan xiriir hoos xataa la lahaa 5 years ma fahantay 5 years jecelkoo soo jilaan ay isguursadeen xataa iyadoo uur lahayn xataa hees ula soo qaaday maxaa lahaayay qurxley ma sha Allah heesa soo qaaday heesa xataa la soo qaaday we all know that rumors ka barigaas bilaabeen xataa uurka iyadoo lahayn ma fahantay maxaa lahaayay arinta marka ani aad ugu qoomamay aad ii taabatay waxaan dhahay maxaa lahaayay badanaa Soomaalida waxa waayay feministiga ayaa ku yar always they blame the woman wiilkan gabar baa guursatay Mareykan u geystay even though website-kiisa channelka TikTok-kiisa ay ku qorneyd xaaskiisa inay isbarteen 2013 ay kala tageen 2023 ayaa ku qoran honestly he's not saying that but I think xaaskiisa weyneed inay kala tageen because wuxuu ku qoray waxaas gaalada waxay ku qoraan dadka markuu dhinto cemetery-ga ma aragtay meesha oo qabrigooda ku qoraan qofkan waqtigaas uu dhashay waqtigaas uu dhintay so that could be mean xiriirkooda inuu waqtigaas bilowday waqtigaas dhamaaday daas ani waxa u qaatay asii xaaskiisa ma fahantii kulligeed asii xaaskiisa kala tageen gabadhan ilmaha u dhashay oo maxaa lahaayay proofka heesato anaga indhaheen wada aragno dadkan u dhow maxaa lahaayay oo dhahay gabadhan wiilkan uu guursaday ilmaha asaa ka dhalay I don't understand the reason why uu maxaa helaa kiraa ma fahantii marka insha Allah I will show you the video ayaa si iyada isla joogaan ku cadeynayso inuu gabadhan wiilka uur u yeelay before uu soo inkirin it's so weird maxaa I don't know maskaxdiisa maxaa helaa wax ku jiro uu la qalbiyeenay because this
This is like real. I don't know. AI got AI ما تقانا. ما والله it doesn't look like the AI حتى فيديو ما فهمتي. لازم see فيديو يرى إذا تصايا. أميرة بي. ساك واحد بيسا كودرة. هاي. كنا وصلنا. هاي. أقول بيسا أنا نريم بشار سما. نريم خلاص. محي نوكل ساريزا. محي نوكل ساري. والله خلاص محي. أجلس شنو ده. صدمت دولار ممكن. يا. صدمت دولار ممكن. قرنيك هنتيا كم مقر. تمام. ها. يا الحمد لله خدنا يده كلش. أمير. وي أمير ورد سمال أنا. نعم. أذكر كأني سمال أنا. waxay ka hadlayaan cunugooda dhalanin dar unborn child ay ka hadlayaan idaysa Amiir waa nin Somalilander ah wuxuu dhahayaa oo soo fiicnin inaan reer Muqdisho ka dhigno markaas wuxuu leeyahay no adigna fikaaga waxaa tahay nin Somalilander ah what kind of proof Soomaaliya raadinaysaan gabadhan waba inay cadeysay nimcaana afkiisu ka qirta gabadhan wiilka inuu asaga dhalay caloosh ku jiray waa kind of proof al raadinayaa wiilkan wuu qirtay maxay qoraalka hadda uu soo qoray xalay qoraal uu soo qoray uu dhahayo qoraalka ay habadka aan fiirsan isoo aqrino qoraalka waa kan wuxuu dhahayaa waxaan arkayaa asxaab badan oo ilaa shalay igu soo warinaya in wiil igu dhashay magaalada Hargeysa ama muuqaal wareejinaya gabadh agoon ahayd oon asxaabnimo u caawinayay laftirkeedu waqtiga aan wada joognay iyada oo ilmaha wadato ayay Hargeysa ka imaaday mar bulshada waxaan ka codsanayaa inaad iga daysaan dambiga okay dulmiga iyo ijaafada haddii aan ubad u baahanahay alxamdulillah ubad qurux badan oo gabadh diin iyo akhlaaq ii dhashay ayaan dunida ii jooga so nimcaana xalaas u soo qoray wala I'm confused if nimcaana saar ani ilmaha ma dhalin kullu qof qasbi kara ma lahan the only way kala bixi karaan waa DNA gabadha dhibaatada gaartana aad iyo aad baa ugu xun gabadha Soomaalida cashar ha u noqdaan sheekadan nin xaas leh maxaan leeyahay weli aan fakaraadin because xaaskiisa hore uu iska raacay weli gabadhan nimcaana xaaskiisa hore aad bay awaalo badan ugu gashay I don't know inay kala tageen kala ani page-kiisa ku arkay picture uu soo dhigay 2013 so I don't know inay 2023 kala tageen xaaskiisa hore I hope inay kala tageen gabadhaas aad bay u wanaajisay Mareykanka intay nolol macaan ay galisay 3 wiil oo qurux badan ay u dhashay ma faahantay kule xaaskiisa hore inuu jecel yahay ka muuqato I hope inay maxalla is haystaan isku wanaagsanaadaan gabadhaanayta walaashiisna haduu og yahay nimcaan ilaa inuu ilmaha ka dhalay I wish inuu maxallahay unugaas maxallahay magaciisa inuu maxallahay dunida ka sheego inuu asaga dhalay maxallahay unugaas mustaqbalkiisa uu dhiso ma faahantay ilmaha aad bay important yihiin nimcaan walaal unugaas maxallahay dunigaaga yahay hubtid kule anaga proof waa aragnaa maxallahay unugaas magaciisa way maxallahay wasaqda ka dhowr maxallahay aabanimo umuuji gabadha had rabin hadaa aragtid dhib ma lahan qof kala guursanayo qurux badan waa marka alaasa idin tagi lahaa sheekada ku wareer sheekada ma fahanti asxaabay subscribe easy sara like and share topic kala daaytaan rabtaa inaan ka hadlana ila soo socodsiin insha Allah assalamu alaykum bye